dadkeenu waxay aad iyo aad u isticmaalaan dawooyinka loo yaqaano antibioticsku waa dawo lidi ku ah bakteeriyadii xanuunka sababaysay waxa badan inay dadku iskood iskaga iibsadaan oo ay ka iibsadaan farmasiyada oo qofka odhanaya dawadii nooca ahayd ama midabkaa lahayd isii inta badan xoog buu isticmaalaan amoxicillinta iyo penicillinta iyo gurubyada ka midka yihiin cuntada markaad wax liqdidna aad cuntid wax markaad wax cuntid marxabad saddexda waqti qofku hadduu dawadii iskiis ku qoro waxyaabaha ay keentee uu ku dhici karo waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano xasaasiyadda ama allergiga waayo dawadii ma garanayo inuu isagu jirhkiisu aqbalayo inaanu aqbalayn dadka qaar baa xasaasiyad ku leh xasaasiyadduna dadka way dishaa haddii qofku intii loogu talagalay in ka badan isticmaalo mushkiladdu maxay ku imanaysaa mushkiladdu waxay ku imanaysaa jirhkiisii baa la qabsanaya hadhow toole markuu u baahdo haddaba waxba ma tarayso dawadii in ka yar hadduu isticmaalo is idhaahdo 3 cisho markaad qaadato waad caafimaadda iska daana wixii u soo noqonaya ila qaadno ila casarkii wax dawa ma lir laba shahan cadeymay laba shahan cabu waxaan sabaa xaraar ku hayso laba waxa jabba ku tiro hal soo kaalir waayo dadka qaar practical waxaan ku dhex jiray aan aqoontii soo dhigan oo theory ku soo dhigan inaku dalkeena aad buu ugu yari etigiska caafimaad waayo qofkaba maba tixgelina dadkeenu laakiin waxay tixgeliyaan lacagta waxaan u baahanahay in dadkeeni aan ku wacyigelino inuu qofkii dhakhtar u tago dhakhtarkii ku habboon u tago dabeetana dawadii ku habbooneed baa la siinayaa iyo micyaarkii ku habboonaa ee jirhkiisu aqbalay ta ugu muhiimsan waa tahay ma ka heshaa barnaamijyada dalsoor ka baxa ma aaminsan tahay fikrada ay dalsoor ku salaysan tahay oo ah midnimo Soomaaliyeed isku filaansho iyo in la helo qaran awood leh oo Soomaaliyeed fadlan ka mid noqo taageerayaasha dalsoor adigoo bixinaya $5 ama $10 bishii waad mahadsantihiin